wararkii ugu dambeeyay xaaladda Ceelbuur oo duulaan ku wajahan yahay ayaan warbixintan ku eegaya balse daawade haddii aad soo booqatay boggeena hoggaanka wararka waxaan kaa codsanayaa inaad na soo follow gareyso sidoo kaleetana muuqaalkan aad like gareyso kaba sii wanaagsan haddii aad u share gareyso saaxiib adigoo kale waad ku mahadsan tahay la socodkaada wararka ka imaanaya magaalada Ceelbuur ayaa sheegaya in xaalad baqtin ah ay ka taagan tahay magaaladaasi tani oo ka dhalatay arrimo isbiirsaday dadka reer Ceelbuur oo markii horeba ka walacsanaa in waxyeello ka soo gaarto gulufka ballaaran ee ciidamada ku soo yihiin magaaladaasi ayaa waxa ugu darsamay al-shabaab oo waxgaradka deegaanka ka dalbaday inay keenaan dhalinyaro xoog leh oo magaalada ka difaaca waxa ay ku sheegeen cadowga wararka ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan al-shabaab oo isniintii la kulmay waxgaradka deegaanka ayaa qasab kaga dhigeen inay keenaan dhalinyaro difaacda magaalada iyagoo tusaaleeyay in ciidamada dowladda federaalka ay la socdaan maleeshiyaadka deegaanka oo doonaya inay la dagaalamaan dagaalyahanadooda waxgaradka deegaanka ayaa la sheegay inay horjoogayaasha al-shabaab u sheegeen inaanay suurtagal ahayn in dhalinyaro aan tababar lahayn loo adeegsado dagaal hase yeeshee al-shabaab ayaa la sheegay inay waxgaradkaasi ku baqdin geliyeen haddii aanay kala shaqayn difaaca magaalada ay u arki doonaan kuwa la safan colka kusoo foodka leh magaalada arrintan kale oo baqdinta ku kordhisay dadka reer Ceelbuur ayaa ah guuxa diyaaradaha dagaalka ee tan iyo shalay laga maqlayay magaaladaasi iyo deegaanada hoostaga ciidamada iyo xogaga deegaanka ee lagu diyaariyay magaalada Dhuusamareeb iyo hareeraheeda ayaa la sheegayaa in maalmaha inay soo aadan ay ku wajahan yihiin magaalooyinka Ceelbuur iyo Galhareeri ciidanka kale oo deegaanka oo lagu talagalay inay ka qayb qaataan howlgalka lagu qabanayo Ceelbuur iyo Galhareeri ayaa la sheegay in isniinta ay ka ambabaxeen magaalada Muqdisho isla markaana ay ku sii jeedaan jiida bari ee gobolka Galgaduud tani ayay shacabka ugu dhigan tahay laba kala daran mid dooro waa midday inay dagaalamaan oo dagaalka ay ku laadaan iyo midda kale oo ah inay isaga baxaan magaaladaasi oo sidaas ay Ceelbuur ku waayaan shabaabka ayaa Ceelbuur ku leh saldhigooda ugu weyn ee gobolada dhexe kadib markii horaantii sanadkan ay gacantooda ka baxday magaalada Xaradheer ee gobolka Mudug ciidanka xooga dalka iyo kuwa Galmudug ayaa 16 bishii January la wareegay magaaladaasi gudoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale ayaa sheegay in si weyn loogu diyaar garoobay howlgalka military ee al-shabaab loogu saarayo Ceelbuur bulshada gobolada dhexe iyo Soomaalida inteeda kale ayaa si dhow ula socda dhaqdhaqaaqyadan ka soo cusboonaaday barsamaha dalka